maanta waxaynu ku bilaabi doonaa dalka Ruushka. Taliyaha guud ee ciidanka Ruushka General Valery Gerasimov ayaa waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay horumar ay ka sameynayaan inta badan jiidaha dagaalka ee Ukraine. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxay sheegtay in Gerasimov uu booqday fariisimaha ciidanka isagoo xusay in dagaalada ugu culus ay ka socdaan magaalooyinka Orviski oo horey loogu yaqaanay Krasnoyarsk iyo sidoo oo galbeedka gobolka Donetsk ee bariga dalkaasi halka oo sidoo kalena ciidamada Ukraine ay isku dayayaan in ay joojiyaan horumarka ciidamada Ruushka iyagoo adeegsanaya cutubiyada dagaalka ee ugu xoogan. Gerasimov waxa uu intaasi ku daray in ciidamada Ruushku ay sidoo kale ay guulay ka gaareen Zaporozhye iyo Dnipropetrovsk ee koonfurta sidoo kalena ee Kupianski oo waqooyi bari ee Kharkiv iyo sidoo kale Yembil oo ku taala bariga isagoo oo tilmaamay in dib u qaabaynta ciidamada Ukraine ee qaar ka mid jiidaha ay fududeysay horumarka Moscow ee meelaha kale. dhinaca kale madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa fariin uu soo dhigay baraha bulshada waxa uu ku sheegay in Ruushka qasaare culus uu la kulmay isla markaasna dagaalkan socday in ka badan 3 sano iyo bar ay muuqanayso dhibaatada dhanka Ruushka soo gaaraysa sida uu yiri waxa uu tilmaamay in taasi ay hor istaagtay in ay fuliyaan hawlgallo ballaaran oo cusub. Zelensky ayaa sharaxay in Moscow sanadkan ay qorsheynaysay in ay ku dhaqaaqdo 4 jiho oo kala Sumy, Novopolsky, Pokrovsky iyo Zaporozhye balse wuxuu carabka ku adkeeyay in hawlgalkii Sumy oo horey u fashilmay ayna ciidamada Ruushka dib ugu qaabeeyeen cutubiyadooda jiilaha kale kadib qasaaraha soo gaaray sidoo ku andacooday afayeen u hadlay cutub Ukraine oo ka tirsan ciidamada ka dagaalamaya agagaarka Gobaniski ayaa sheegay in isku dayga Ruushka uu ku doonayo inuu ku qabsado magaaladaasi uu ku soo dhamaaday in la qabto askar Ruusha halka taliyaha mid ka mid ah jiidahana uu xaqiijiyay in ciidamada Ukraine ay hor istaageen weerar kale oo kusoo wajahna agagaarka Pokrovsky. ciidamada Ruushka ayaa muddo bilooyin ku jiray dagaallo lagu daalinayo askarta Ukraine si dhul dheeraad ah ay uga qabsadaan Donetsk iyo Kharkiv halka Kiev ay kordhisay baaqeeda ku saabsan taageerada reer galbeedka ee hub iyo rasaasa. Tan iyo 24 Febraayo 2022 Ruushku waxa uu dagaal kula jiraa dariskiisa Ukraine waxaana dhamaadkiisu uu ku xiran yahay in Kiev ay ka tanaasusho ku biirista ururada military ee reer galbeedka taasi oo Kiev u aragto faragelin arrimaheeda gudaha ah. ciidamada Ruushka ayaa hadda gacanta ku haya ku dhawaad 5 meelood meel dhulka dalka Ukraine halka Ukraine ay ku adkaysanayso in ay ka baxaan dhammaan dhulkaasi. waa tahay wixii warar ah ee arbacaasi ku soo kordhaha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa. imika xagga Mareykanka aynu qoraansanno halkaasi oo wararka ka imaanaya ay sheegayaan in xubno ka tirsan booliiska gobolka Pennsylvania ee dalkaasi in loo geystay dhimasho dhaawac. warbaahinta Mareykanka ayaa ku soo waramaysa in 3 sarkaal oo booliis la dilay halka 2 kale ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday koonfurta gobolkaasi. gudoomiyaha gobolka Josh Shapiro ayaa yiri waxaan u murugaynaynaa geerida 3 qof oo qaali ah kuwaasi u adeegayay degmadan gobolka iyo wadankaba. maamulka ayaa sheegay in baaritaan uu ka socdo magaalada North Coutros oo qiyaastii 185 kilomitir u jirta magaalada Philadelphia dhanka galbeed meel u dhow xadka Maryland. cisbitaalka deegaanka York ayaa horey u sheegay in 2 sarkaal oo booliis lagu dabiibayo xaalad halis ah waxaana la xaqiijiyay in la dhaqan geliyay habraacyo amni oo adaga gudaha xarunta caafimaadka. ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka Austin Davis ayaa fariin uu soo dhigay baraha bulshada waxa uu ku codsaday in dadka gobolku ay u duceeyaan saraakiisha booliiska iyo dadka ku dhaawacmay dhacdada. sawiradii ugu horeeyay ee laga helay goobta ayaa muujiyay in ciidan badan lagu wareejiyay waddo miyi ah oo ku hareeraysan guryo dhaqameed iyo baqaaro iyada oo baarayaashu ay weli ay ku howlan yihiin go'aaminta duruufaha dhacdada iyo ujeedada weerarkan. Mareykanka ayaa mararka qaarkood la kulma dhacdooyin toogasho ah oo la xiriira faragelinta booliiska kuwaasi oo badana dib u soo celiya doodaha ku saabsan ammaanka bulshada iyo nabadgelyada booliiska gaar ahaan
meelaha miyiga ah oo hubka si fudud looga heli karo sanadihii u dambeeyey Pennsylvania ayaa la kulantay dhacdooyin la mid ah kuwan gaar ahaan agagaarka Philadelphia taasi oo ka dhigaysa ammaanka bulshada mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee horyaal gudoomiyaha gobolkaasi Josh Shapiro iyo waliba maamulka uu hogaamiyo